Asalaamu calaykum. Xalqadda hore waxay noogu joogtay Jacfar uu akhriyay Quraankii iyo waxyaabo islaamnimadii u sharaxay Najaashi. Markaas waxaan inoogu soo dambeysay inay marka aad ula qiiroodeen. Qaybta maanta marka waxaan ka bilaabaynaa Najaashi ayaa markii islaamnimadii loo sharaxay Quraankii lagu dul akhriyay ayaa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay arrintan aad hadda ii akhrinayso iyo fariintii Muuse iyo Ciise loo soo dhiibay labadaasi isku meel ayay ka soo barqanayaanoo isku meel bay ka soo baxeen. labadii nin ee wafdiga ahaa ee Quraysh ay soo dirsteen wuxuu ku yidhi iska socda xaran bay ka tahay idinma dhiibaye hataa kuma fikir doono inaan idin dhiibo. Camar bin Caas iyo saaxiibkiina iyagoo duuleysan ay meeshii ka soo baxeen oo arrintii u socdeen dabcan ay ku guuldareysteen. Markay meeshii ka soo baxayeen ayaa Camar bin Caas baa saaxiibkii la hadlay oo ku yidhi ha is dhiibin weli fursad baynu haysanaaye. saaxiibkii oo markaa dadka qaar ay dhahaan wuxuu ahaa Cabdalla ibn Abi Rabiica, kuwa kale ay dhahaan maya wuxuu ahaa inadeerkii Camaar ibn Waliid ayuu ahaa, aduu Ilaahay baa garanaya ku ahaa. Marka saaxiibkii oo markaa yuu ku yidhi oo Camar bin Caas baa ku oranaya arrintan aan wadana waxaan doonayaa berri intaan aynu ku soo laba noqono boqorka in meel halis aan boqorka ka taabto arrin muhiim ah inaan u sheego ayaan doonayaa. Camar bin Caas saaxiibkiina dabcan marka si loo eego isaga ayaa ka yar naxariis badnaa oo wuxuu ku yidhi Camaro iska dhaaf dadkan iska daa hataa haddaan ku guuleysan weyno oo halkan iska dhex noolaadaan waa dareemi kartaa waa dadkeenii uun iska dhaaf buu ku yidhi. Camar bin Caasna runtii wuu ka diiday wuxuu yidhi may horta bal mar kale aan fursad kale aan berri baan rabaa inaan boqorka ku soo noqdo arrin kale aan kala hadlo. Camar markaa ballan kale ayuu qabsaday wuxuu yidhi boqorkaan raba inaan ku laba noqdo. Markaasuu Najaashi ku yidhi shalay baan dhammayn hawshii maxaa doonaysaa sumayna ku dhammaanin. Camar baa markaa wuxuu yidhi boqorow hal shay baan iloobay inaan shalay kuu sheego. Shaygaasina waxa weeyaan shay weyn oo dembi ah oo macsi weyn ah ayaa waxa ay ka sheegaan ilaaha aad caabudaan ee Ciise. haddaad been iga moodaysaana bal wakaas iyaga u tagoo weydiiyo waxaad ku tirahdaan Ciise maxaad ka aaminsan tihiin. office markaa runtii shaygaas markaa dembiga weyn ah ee macsida ah ee dadku marka labada anfirinayna waqtiga la aaminsanaa waxa weeye wuxuu u hoosgelinayaa uu leeyahay haddii muslimiin yihiin ma aaminsana oo ma oranayaan Ciise waa inankii Ilaahay. arrintii markii Najaashi loo sheegayna mar labaad ayuu fariin u diray muslimiintii wuxuu yidhi haddana qasriga boqortooyada mar labaad ku soo laba noqda. markii dambe ee loo yeedhayna Jacfar wuxuu yidhi Ciise waxaanu ka aaminsanahay inuu yahay addoonkii Ilaahay, rasuulka Ilaahay, ruuxda Ilaahay, waxa aana dhashay Maryam oo bilaa aabe ayuu ku dhashay. waxaana markaa u akhriyay suuratu Maryam beejka labaad kale barkeed halkaas ka bilaabay ilaa inta ka waramaysa taariikhda iyo qiisada Nabi Ciise ka waramaysa ayuu markaa u akhriyay. waxaana Jacfar markaa yidhi boqorow Ciise waxa aanu ka aaminsanahay waxa uu rasuulka iyagu sallallahu alayhi wasallam uu ka yidhi uu ka aaminsan yahay. runtii u fiirso Jacfar mar walba uu jawaabayay waxa uu leeyahay rasuulkayaga ayaa saa aaminsan, rasuulkayaga ayaana baray, rasuulkayaga ayaa saa noo sheegay. wuxuu mar walba doonayaa intuusan hadlin inuu marka hore Najaashi u caddeeyo mabaadi'da iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay inuu tusiyo. runtii qodobkaasina waa qodob muhiim ah oo xataa inaga maanta muslimiinta ah la rabo inaynu kaga dayano oo maanta markayna weydiiyaan dadka gaaladii ay dhahaan dumarkiinu maxay u xijaabtaan marka saas kale inoo weydiiyaan waxaa laynooga baahan yahay inaan dhahno allaha aanu aaminsannahay ee na abuuray ee nu caabudno ee diinta uu noo soo dejiyey aanu haysanno ayaa noo sheegay inaanu sidaa iyo sidaa samayno saa darteed baanu u samaynaynaa. sidaa markaa tirahdana runtii qofkani waxa uu markaa uu yaqiinsanayaa oo garanayaa mabaadi'dii aad aaminsaneed inaad ku dhaqmayso. runtii u fiirsadaba Jacfar markuu hadallada ku hadlay ee qaabka wax u soo bandhigay boqor Najaashi markaas arrin ayaa u soo baxday halkaas uu wax ka gartay waayo horan dabcan xalqadii horena ku soo sheegnay Najaashi ma uusan isagu markii hore aaminsanayn kumuna qanacsanayn aragtidan oranaysa inay saddex ilaah jiraan Ciise inuu inankii Ilaahay yahay waxyaabahaas oo dhan oo kristaanimada mabaadi' u ah isagu muusan aaminsanayn. Najaashi iyo dabcan Hiriqle oo aynu qaybaha dambe ku arki doono labadooduba markaa dad dabcan aqoonlana way ahaayeen iyagu markaa labadoodu waa Hiriqle iyo Najaashibe maysan iyagu aaminsanayn qaysaska ka agdhow ee ku wareegsanay kristaanimada ay aaminsan yihiin iyo sida ay tahay iyagu maysan u aaminsanayn. taasina waa arrinta keentay markuu Jacfar uu arrintan uu ka hadlay inuu markaas inuu boqor Najaashi sidii markii hore uu yaabo si ka daran inuu u sii yaabo oo uu aad ugu sii khushuuco islaamnimada iyo Jacfar arrimaha uu la wadaagay. sababtoo ah Najaashi waxa u soo baxday wixii uu aaminsanaa ee dabcan xogaa uu yar qarsanayay cid aaminsan oo haysata oo ku faanaysa inay jirto ayaa markaa u soo baxday. markaas ayuu Najaashi inta u yar qaaday buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay waxaad hadda tidheed hadda ii sheegtay iyo wixii uu Ciise odhan jiray intaa yara intuu saa u tusay intaa yara isma dhaafsana ee waa isku mid uun.
professor wuxuu najaashi marka uu ku leeyahay fariinta aad wadaan waa isla fariintii nabi ciise uu waday ee uu faafin jiray oo kale sababtoo ah ciise isagu weligii muusan odhanin waxaan ahay inankii ilaahay waxaana kamid ahay saddexda ilaah mid kamid aan ahay weligii saas muusan odhanin markaas intuu najaashi uu kusoo jeesaday safiirada ay reer Quraysh soo direen ay soo dirsadeen intuu kusoo jeesaday buu ku yidhi alaabtiinan iyo hadiyadihii tabcan aad keenteen aad wadateen qaata dib ula noqda mar dambana idinma arki kare waxaad noo keenteen uma baahnine noqda oo wadankiina ku laba noqda marka u fiirso si uu u sii xumeeyay xataa ayaa hadiyadihii loo keenay dabcan hadiyadana badan lama celiyo xataa hadiyadaha ay u keeneen ayuu si ugu xumeeyay darteed buu ugu laba celiyay Salama marka ka waran waxa tiri labadii safiir marka iyagoo dulleysan oo aad u guul dareystay meesha ka soo laba noqdeen oo dib ay uga soo noqdeen Abyssinia makana saas ugu soo noqdeen halkaas ayaanu si sharaf leh oo nabadgelyo leh oo wanaagsan aan ugu nooleyn ilaa intii markii dambe aanu ka soo noqonaynay oo aan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam aan dib ugu soo noqonaynay inta wixii ka dambeysay daba waxa la yiraahdaa najaashi markii dambe uu yiri fariintan aad wadaan iyo fariintan leedinku soo dajiyay waa isla fariintii uu ciise uu faafin jiray oo inta yar u shaas yarna hataa ma dheera markuu hadalka uu hadlay warba markaa faafay oo magaaladii iyo wadankii Abyssinia waxa galay in najaashi uu munaafiq noqday kana baxay diintii aabayaashii iyo awooyaashii uu ka baxay inta waxa kadib hadana mar labaad waxa la bilaabay dabcan waa dareemi kartaa siyaasadana mar walba in gudaha la iskeer xilfinayo in ka jirto qaybo marka wasiiradiisa kamid iyo dadweynaha la talinayay ayaa marka iyaguna waxa bilaabay in si gaar ah uga sheekaystaan oo ay xogaa muqaaradaan najaashi intaas kadib hadana najaashi ayaa wuxuu ogaaday marka in warkaasi uu magaalada ku dhex jiro oo hatta isaga dadkii la shaqeynayay si gaar ah loogu sheekaysanayo oo leeyahay diintii uu ka baxayo hadda kristaannimadii uu iskaga baxay in lagu sheekaysanayo ayuu maqlay najaashi marka arin ayuu qorsheeyay wuxuu doonay warkaas magaalada ku wareegaysanaya ee xanta ah inuu meesha uu ka saaro oo dadka warka wareejinaya inuu meesha warka aduu inuu dumiyo ayuu doonay warqad buu markaa soo qaaday warqadii wuxuu ku qoray waxa aan qirayaa alla xaq lagu caabudo inuusan jirin alla mooye waxaan kale oo qirayaa ciise inuu ahaa adoonkii ilaahay ruuxdii ilaahay masiixna uu ahaa warqadii markuu saa ku qoray ayuu soo qaaday halka laabta ayuu gashaday dharkii waaweynaa ee wad dareemi kartaa madaxda kulli dhar weyn bay xidhaan dharkii waaweynaa iyo wixii ay boqoradu xidhan jireen wuu xidhay warqadii halkan hoosta laabta ayuu halkan ayuu ugu jirtaa oo gashaday markaas ayuu kulan uu sameeyay oo dadkii isugu wada yeeray khaasatan dadyoogii lagu tuumay in arrinta boonboonayaan dhamaantood uu isugu wada yeeray waa uu la hadlay khudbad uu jeediyay wuxuu ku yiri maxaa idinku dhacay miyaanan boqor wanaagsan idin ahayn miyaana waxaas iyo waxyaabo wanaagsan idin qabanin maxaad bal sheega warka jira muxuu yahay maxaa baryahan xanta socota maxay tahay هذين runtii حتى marka laga hadlo حتى iyagu waxay ku yaqaaneen inuu boqor fiican ahaa cadaalad buu u sameyn jiray waxyaabo far badan dadka uu qabtay si guud marka loo eego waa la jeclaa marka wuxuu ku leeyahay waxaas iyo waxa miyaan idin qabanin waa noo qabatay waa la wada yiri ugu dambeyntii wuxuu ku yiri hadda saas tahay bal ii sheega dhibka iyo waxaad iga tabanaysaan hadda muxuu yahay warka saxanta suuqa wareegaya muxuu yahay bal ii sheega iyaguna markii dambe hadlayna waxay yiraahdeen waxaanu maqalay inaad ka baxday diintii aabayaasheen markaas ku yiri idinku maxaad aaminsantiin maxaa tiraadaan markaas yiraahdeen waxaan dhahnaa ciise waa badbaadiyaha yagii waa inankii ilaahay waa ilaahay saas ayaanu dhahnaa markay sidaas dhaheen ayuu najaashina yiri anaguna wallaahi baan ku dhaartay waxani intuu farta ku qabtay warqadii uu laabta soo gashaday uu soo qortay dabcan xaqayd intuu farta saa ugu qabtay halkan uu yiri wallahi baan ku dhaartay isla arintani fartana intuu ku fiiqay meeshii laabta ahayd buu yiri aniguna waa isla arrintan aaminsanahay firsaruntii arrinta uu sameeyay hadda najaashi waa tawriya marka si loo eego waa hadal marka xaggan laga eego saxan haddana dhinaca kalena ka saxan oo iyagu marka waxay leeyihiin wixii u sheegeen markuu leeyahay wallahi baan ku dhaartay anagu waxaasan aaminsanahay iyagu waxay fahmayaan wixii ay yiraahdeen hadda isaguna muxuu farta ku fiiqay oo gacanta u saaray warqadii uu soo qortay ee xaq ahayd buu gacanta ku fiiqay yiri wallahi baan ku dhaartay aniguna waxaan aaminsanahay waa isla waxan intuu farta ku fiiqay meeshii sidaas markuu najaashi u dhaartayna tabcan kristanka meesha fadhiya aad bay ugu wada farxeen oo ay ku qanceen warkii la warwareejinayna halkii ayuu markii ku bacay
runtii arrinta xiisaha badanna waxa weeye shirkan inta uusan gelin warqadan intuusan qorin dadka intuusan isugu yeedhin ka hor waxaa dhacday warqad sir ah ayuu wuxuu usoo qoray oo usoo diray muslimiintii. warqadan wuxuu ugu soo qoray markaa muslimiintii maalmahan dhib baa taagan, aniguna waxaa laga yaabaa in la idilo oo meeshii dabcan aan ka baxo. dabcan waayo arrintani arrin aada u weyn bay ahayd oo aad bay arrintani u weynaatay, meelo fara badan bay markaa gaadhay. markaas warqada usoo diray Najaashi saxaabada markaa wuxuu ku lahaa arrin baa macnaha problem baa meesha ka taagan, waxaa laga yaabaa in la idilo. sidaa darteed buu yidhi haddii aad maqashaan inaan dhintay oo la idilay, waxaan idiin diyaariyey safar baan idiin diyaariyey halkaas iyo halkaa iyo goobtaas, safarka anaa iska leh, safarka qaata, waxaad raacdaan cunto iyo wax walba way ku jiraan. intaad safarka qaataan dib ugu noqdo wadankiini, dib ugu noqda, halkaana weli waxaad ka raacdaan markabkaana aniga ayaa iska leh. ninka markabka wadana warqada waan u sheegay, fariinta waan u sheegay, markabkaas raaca, wadankiini markaas sidaa ku gala. laakiin haddana nasiib wanaag arrintaas uu ka baqay markaa ma aysan dhicin oo waa kan khidad buu sameeyey, uu ka guuleystay. laakiin runta halkaa waxaad ka dareemaysaa iimaanka uu lahaa Najaashi. xataa markii uu isaga kursigiisa uu qiilqiil galay, wuxuu haddana intaas uu doonayey in muslimiinta uu badbaadiyo. sidoo kale Albayhaqi kitaabkiisa Dalaa'il Nubuwa isaguna wuxuu ku sheegayaa markii dambe ee Rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo uu Madiina tagay waraqaha uu boqortooyinka uu u dirdirayay, warqadba markaa uu Najaashi oo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam u soo diray oo islaamnimada uu ku casuumayo, warqadaas markaa uu Rasuulku u soo diray isagoo ka jawaabaya ayaa Najaashi waxa uu soo qoray: rasuul Allah, horaan ku aaminay dhammaan islaamnimadiina waan qaatay, qof muslimaan ahay. haddii aad hadda ifarayso inaan imaado oo intaan Abisiiniya ka imaado aan Madiina imaadana waan imanayaa, waan ku shaqaynayaa. intaasoo dhanna dabcan Najaashi islaamnimadiisa uu qarsanayay. xataa muslimiintu dabcan halka Abisiiniya iyo ardul Xabash muddo 10 sano ka badan bay ku noolaayeen, ilaa 12 sano ayay ku noolaayeen. haddana saasoo tahay dhacdooyin badan dabcan taariikhdu maysan ka diiwaan gelinin. waxaase jirta dhacdo waqtigaas muslimiintu ay halka joogeen ay dhacday, taasoo taariikhda ku xusan. dhacdadaasna dabcan waxay ahayd isku day la doonayay in boqortooyada la afgambiyo. markaana Najaashi iyo dadkii la tirinayay ma aha dadkan doonayay inay afgambiyaan, waxay ahayd qoys kale oo iyaguna markaa boqortooyo ahaa oo Abisiiniya ka tirsanaa, ayaa waxay doonayeen markaa Najaashi iyo inta xukuumaddiisa intay afgambiyaan ay xukuumadda kala wareegaan inay wadanka dhan Abisiiniya ay u taliyaan. arrintaasina marba marka ka dambeysa way sii xumaanaysay, ilaa markii dambe ay noqotay arrin weyn oo ku dhowaata in dagaal sokeeye uu qarxo. Salama oo dhacdan ka waramaysa waxaa tiri waqtigaas oo xaaladdu sii ba'naatay, dagaaladii sii kululaadeen, haddaan muslimiintan ahay aad baan u baqanaynay oo aad baan u cabsanay oo waxaanu islahayn saan dabcan la dareemayay dadka kasoo horjeeda Najaashi siday u xoog badan yihiin darteed arma Najaashi inta la afgambiyo oo xukuumadda laga wareego, kuwo kale oo anaga cadow nagu ay arma xukuumadda qabsadaan baanu islahayn. annaguna waxay tiri muslima markaas waxa aan sameeyay annagoo garana ayaanu in badan Ilaahay u baryaynay oo u ducaynaynay Najaashi markaa inuu guuleeyo oo dadka kasoo horjeeda uu ka guuleeyo. xaaladii markii dambena aad bay u sii xumaatay oo farahay ka haday. markii ugu dambeysay markaa arrintii aanu ka baqanaynay ayaa dhacday oo waxaa dhacay dagaal sokeeye ayaa dhacay, dagaal baa la galay. markaasaan anaga isku nimid, waan tashanay, waxaan nidhi maxaynu samaynaa. waxaanu markii aanu tashanay aanu ku go'aaminay in qof anaga naga mid yahay uu dagaalka uu tago uu kasoo qayb qaato, macnaha uusan dagaalka gelin laakiin uu dagaalka uu tago oo waxa se wax u dhacayaan uu kasoo warhayo. xaaladdu markaa siday noqoto uu nooga soo warramo inta aysan cid kale noo sheegin. haddii markaa dabcan Najaashi iyo ciidankiisa laga guuleysto inaanu markaa iska baxno intana dad kaleba ogaanin, haddii ay guuleystaan dee waa saan rabnayba. waqtigaas markaa Zubayr ibn Cawaam ayaa markaas yidhi aniga ayaa dagaalka tegaya, soo eegaya oo bal say wax u dhacayaan anaa soo ogaanaya. dabcan Zubayr isaguna ah maxay rasuulka in adeerkii dagaalkuna markaa waxa uu ka socday oo uu ka dhexdhacayay webiga Nile dushiisa ayuu markaa uu ka dhacayay. Zubayr ibn Cawaam markaa dagaalka meeshuu ka dhacayay aad buu ugu soo dhawaaday, xataa meel waxa uu yimid markaa uu ka arki karayo labada kooxood kuwa guuleysta. muslimana marka waxa leedahay sidaan ugu ducaynay maalinkaas xataa si غير caadi ah oo aad iyo aad ah ayaan ugu ducaynay Najaashi oo lahayn Ilaahay oo Najaashi inta la socota badbaadi oo gacanta sareysa si baanu lahayn. intaas kadibna dagaalkii markuu dhowr cisho socday, Zubayr baa ku soo laba noqday isagoo wajigiisu aad u ifayo oo faraxsan oo ku leh hambalyo, waxa guuleystay ciidankii Najaashi.
runtii markaa u fiirso dagaalkan Najaashi dabcan si sir ayuu muslim u yahay, laakiin dagaalkan hadda Najaashi iyo kooxdan kale ay dagaalamayaan dagaal diimeed ma aha, waa dagaal siyaasadeed oo labada kooxood Najaashi iyo kuwa kasoo horjeeda u dhaxeeya. haddana saasay tahay muslimiintu waxay taageerayeen oo xataa u ducaynayeen garabkii Najaashi. halkan runtii waxay nooga soo baxaysaa maanta dadka muslimiinta ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ah ee laga tirada badan yahay, haddii laba xisbi oo siyaasadeed oo tartamaya mid kamid labada xisbi oo mid kamidihi uu muslimiinta mid u jilcan yahay oo muslimiinta u dhimrinayo, muslimiintu way taageeri karayaan, xataa way u ducayn karaan xisbiga iyaga dhinacooda u janjeera inuu guuleysto oo uu doorashada ku soo baxo. intaa wixii ka dambeeyay runtii sanado badan kadib Najaashi ayaa geeriyooday. markaas waqtiga uu Najaashi geeriyooday ayaa maalinba Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waqtigaas oo Madiina uu joogay intuu saxaabada u soo baxay ayuu saxaabada ku yiri Jibriil ayaa hadda waxa uu ii sheegay mid kamid ah walaalaha oo wanaagsan ayaa ku geeriyooday wadankan jaarka ah. officer runtii Najaashi markuu dhintay intuusan cod kalaba intii xagga ka timaadan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam aysan u soo sheegin, waqtigaas hadii xagga ka soo bixi lahayn ilaa muddo 2 usbuuc ay soo socon lahaayeen. isla markuu soo dhintay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay Jibriil. markaas ay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa isugu yeeray, wuxuuna markaa Rasuulku halka ka sameeyay oo uu ku tukaday salaada kaliya ee Rasuulka sallallahu alayhi wasallam intii uu noolaa uu tukaday. qofka kaliya uu ku tukadayna uu Najaashi ahaa, taasoo ahayd salaad janaa'iso maqan. markaas ayaana la sharciyay salaatul janaasa cala al-ghaib. runtii Najaashina wuxuu noqday qofka kaliya ee Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku tukado salaatul janaaso maqan. runtii Abyssinia muslimiintu halkaas Abyssinia waxay joogeen markaa muddo ka badan 10 sano. markii dambe Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu Madiina u hijrooday dagaalkii Khaybar dabcan waa mar bari dambe intii uu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam maka joogay Madiina uu joogay dagaalkii Badr la galay, Uhud la galay, Ahsaab la galay. intaas oo dhan muslimiintii markii hore u hijrooday Abyssinia ama Ardul Habash intaas oo dhan xaggaas ku maqnaayeen. marka dagaalkii Khaybar la galay ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu warqad Jaafar u diray oo ku leeyahay soo noqda hadda. runtii haddaba su'aasha xisaab badan mudan in halka la iska weydiiyo waxa weeye Rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu Madiina u soo hijrooday waqtigaas oo khaasatan waqtiyadii hore oo u baahnaa rag la dagaalamo, markuu u baahnaa maxay muslimiinta aadka u badani ee 80 ka badani ay halka Abyssinia ama Ardul Habash ay halka u joogeen. sababtu maxay noqon kartaa? dabcan sababta Ilaahay baa garanaya, haddana sababaha waxa kamid ah loo oran karaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu halka uu ka lahaa qorshihiisa labaad ayuu ahaa oo waa plan B ayuu u ahaa oo lacala haddii Madiina ay u noqon weydo sida uu doonayo oo Madiina ay ku xumaato inuu waxa uu qorsheysanayay mustaqbalka ayuu ka fikirayo inuu halkaas uu tago ayuu rabay. halkan runtii waxaan ka dareemaynaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo Ilaahay ku kalsoon oo Ilaahay tala saaranaya, haddana mar walba qorshayaal ayuu dejisanayay, xataa mustaqbalka ayuu ka sii fikirayay. u fiirso waliba dagaalkii Khaybar wuxuu ahaa dagaalkii ugu dambeeyay ee Rasuulku uu hubsanayo inuu hadda Madiina uu gacanta ku dhigay. markaas Yahuudi iyo dadkii Madiina ku hareereysnaa oo dhan uu iska wada sifeeyay. markii uu Rasuulku oo si fiican uu isku hubsaday Madiina inay hadda xasiloon tahay, markaas ayuu fariin u diray oo ku yiri saxaabadii soo laba noqda. su'aasha kale mudan in la isweydiino waxa weeyaan muddadaas ay saxaabada halka ku joogeen dadkii reer Abyssinia ee halka joogay oo islaamnimadii ma aqbaleen. dabcan soo wirna kala ma hayno oo waxyaabo fasiraada oo dheeraada oo inta ka waramaya ma hayno. waxaas mararka qaar muuqanaysa oo sirada lagu dhex arkaya qaybo kamid ah reer Abyssinia iyo Ardul Habash dadkii waqtiga deganaa qaybo kamid ah in islaamnimada aqbaleen. dabcan laakiin waqtiga waxa la oran karaa si buuxda Abyssinia maysan islaamnimada u wada qaadanin ilaa markii dambe qaybo kamid ah oo islaamku intuu furtay ay islaamnimadu sidaa ku gaadhay, markaas oo noqon doonta 50 ilaa 60 sano kadib. sidoo kale waqtigaas halka waxa ka dhacay Ubaydullah ibn Jahshi oo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam in adeerkii ahaa ayaa isagoo halka ku dhintay. xaaskiisana markaa waxay ahayd Habiba bint Sufyaan oo dabcan ah maxay Abu Sufyaan inantiisii. Habiba markaa iyadoo halka joogay ay xagga Carmali ku noqotay, halka oo Abyssinia ahna dabcan qof ku daryeelay waqtigaas ma uusan jirin. markaas ay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu warqad u soo diray oo kaga codsanayay inuu guursado. warqadana markaa wuxuu ugu soo dhiibay Najaashina markaa isaga ayaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam dabcan Rasuulku oranin iga bixi ayuu Rasuulka meherkii uu ka bixiyay.
markaas intaa wixii ka dambeeyey Najaashi ayaa wafdi diyaariyey, wafdi markaa u soo qaado oo keena Madiina. intaa wixii ka dambeeyeyna dabcan hijrada labaad ee saxaabadu ay Abyssinia u hijroonayaan intii ka dambeysay waqtiga kusoo xigay markaa waxaa dhacday laba qof oo aad u waaweyn ayaa islaamnimadii waqtigaa qaatay. waqtigaasna labada qof intaysan islaamin ka hor dabcan waqtiga muslimiinta inta ugu badani waa kuwan Abyssinia u hijrooday. waqtiga inta muslimiinta meesha ku hadhay waxaa la yiraahdaa ilaa mararka qaar waxaa la qoraa 37 nin ayaa markaa la qoraa. marka 38 kaas mooye intii kale 80 wax ka badan boqol ku dhow waxay markaa ay u hijroodeen Abyssinia. muslimiintuna waqtigaas iyagoo sidaa u tira yar ayuu Ilaahay waxa uu ku manaystay laba qof oo Quraysh dhexdeeda markaas magac ku lahaa inay islaamaan. labada qofna kore wuxuu ahaa Xamza oo ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam adeerkii. runtii Xamza iyo qaabka uu islaamay marka la eegana waa qaab yar qariib ah oo dabcan aad ka yaabayso. waxaan la soo wariyaa Xamza waxaa lagu yaqaanay oo qaan ku ahaan jiray inuu ugaarsaday yahay oo mararka qaar intuu ugaarsi u baxo ayuu in muddo maqnaan jiray, mar dambe ayuu soo noqon jiray dhowr cisho intuu ku maqnaado. marka koobaad uu soo noqdana intuusan gurigiisa tagin wuxuu sameyn jiray Kacbada ayuu dawaafi jiray, markaasuu gurigiisa u tagi jiray. marka waxa dhacday maalin sida isagoo ugaarsiga ugu maqan oo kasoo noqday ayaa waxaa la yiraahdaa rasuulku maalinkaas isagoo intuu Maka rasuulka sallallahu alayhi wasallam jooga boorta Safar rasuulku isagoo maraya ayaa maalinkaas halkaa waxaa kula kulmay Abu Jahl maalinkaas si ay ahaydba maalinka aad iyo aad buu xanaaqsanaa. maalinkaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam si aad iyo aad ayuu u caayay, wuu aflagaadeeyay, wuu nacdalay, wax walba wuu ku sameeyey. wax umuna dhaawac umuna gaarsiinin, laakiin si uusan weligii cid u caayin uusan u aflagaadeynin ayuu maalinkaa rasuulka u aflagaadeeyey. xataa waxa uu gaadhay heer uu rasuulka caayo aabayaashii iyo awoyaashii xataa uu caayo. Abu Jahl intaa uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida uu caayay rasuulku hal kelmadna ma uusan oranino, intaasoo dhan wuu aamusnaa ilaa markii dambe Abu Jahl sida uu caayay intuu daalo uu iskaga tagay. maalinkaas markaa waxaa aad iyo aad u xanaaqay dumarkii reer Banu Hashim, waayo Abu Jahl oo caayaya dabcan Abu Jahl waa reer Banu Makhsuum. reer Banu Makhsuum markaa Abu Jahl oo reer Banu Makhsuuma maadaama rasuulka iyo aabayaashii awoyaashii uu caayay waxay ka dhigan tahay isagoo reer Banu Makhsuuma ayuu reer Banu Hashim caayay. dumarkii markaa reer Banu Hashim ayaa maalinkaa aad iyo aad iyaguna u xanaaqay. markaasna markaa dumarkii markaa waxay yiraahdeen ninkani Abu Jahl sideebuu markaa u caayayaa reer Banu Hashim kayagii maadaama dabcan uu xataa uu gaadhay rasuulka aabayaashii awoyaashii inuu caayo. halkaa uu rasuulku ku caayna markaa waxaa la yiraahdaa nin reer Banu Hashim markaa muusan taagnayn, dumarun baa markaa meesha joogay. waxaa la yiraahdaa markaa isla maalinkaas markaa Xamza markii uu ugaarsiga uu kasoo noqday uu yimaaday ayaa dumarkii meesha joogay. markuu Abu Jahl uu caayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa markaa caradii iyo canaantii waxay kula daldhaceen Xamse, waxayna ku yiraahdeen horta Xamse adeer noocee baa tahay marka wiilkii aad adeerka u ahayd si xun loo caayo oo sida loo caayayo hal qof oo intuu isaga garab istaago ka difaaca la waayo. marka runtii fiirso hadda meeshu islaamnimo iyo waxyaabaas ma taagna, hadda waxay taagan tahay maxay waa meeshu waa sharaf oo nin reer Banu Makhsuuma ayaa qabiilkeeni iyo jilibkeeni reer Banu Hashimka caayay bay ka dhigan tahay. markaas ayuu Xamsana ku yidhi maxaa dhacay, markaas u sheegeen oo ku yiraahdeen Abu Jahl ayaa maanta inankii wiilkii adeerka u ahayd si aan weligii qof loo caayin buu u caayay, isaga aabihii awoyaashii xataa wuu caayay. waxayna ku yiraahdeen intii uu caayay oo dhan qof intuu garab istaago ka difaacay ma jirin, dhammaan wuxuuna ku yidhi kan iyo kan iyo kan buu ku yidhi, wixii uu ku lahaayo dhanna way u wada sheegeen. markaas ayaa waxaa la yiraahdaa Xamse ayuu dhiigii ku karay aad iyo aad maalinka u xanaaqay. wuxuu ku yiri uu weydiiyey markuu sidan u caayay ma labadoon bay ahaayeen mise dad kala maqlayay bay ku yiraahdeen dad kala ka hadlaysaa reer Maka oo dhan baa wada maqlayay. runtii hadda waad dareemi kartaa caradu imika way sii badanaysaa sababtoo ah hadda waxaa la difaacanayaa sumcad iyo sharaf baa la difaacanayaa. hadda Xamse markaa isagoo xanaaqay intuu ka tambatay oo aan iskala ogeyn buu soo dhaqaaqay. markaasunba ugaarsi ka yimid waxyaabihii ku ugaarsanayay seefihii iyo warankii iyo wixiina markaa u wataa dabcan wuu soo dhaqaaqay. wuxuu u soo dhaqaaqay xaggii Abu Jahl. markuu Abu Jahl u yimaaday isagoon ka hadlinin ayaa waxyaabihii ku ugaarsanayay uu watay ayuu wejiga kaga dhuftay xataa heer uu gaarsiiyo inuu dhiig uu kasoo daadiyo. Xamsana nabarka aadka u weyn markuu gaarsiiyey waxaa ku yidhi sideebaad u awooday wiilkan adeerka u ahay inaad caydo. markaa dabcan Xamsana markaan xanaaq uu kala go'an yahay waxuu ku hadlaya isma oga. wuxuu hadalka si raacay uu yidhi aniguna aan qaatayba oo raacsan diintiisa
u fiirso xamse inuu islaamnimada aqbato inuu islaamnimada u aqbalo muusan sii qorshaynin laakiin xanaaqi baa ka keenay hadalka inuu ku hadlo xanaaqi marka dabcan hadalka ka keenay uu leeyahay masuumadan waxa u cayso islaamnimada ma ahayn maxaad ka leedahay anigaaba diintiisii hayste ka leefo kaase ka leef sidaas xamse markuu yidhi dabcan markaa aad baa loo wada yaabay abujahle markaa sidaa uu xamse ugu dhufanayay wuu fadhiyey markuu dhaawaca gaadhsiiyey kuwo kale oo reer bani maqsuum meesha fadhiyay ayaa kacay iyagoo doonaya abujahle inay difaacaan dabcan caadiyan xamse waxaa lagu yaqaanay wuxuu kamid ahaa shakhsiyaadka kooban ee aadka u xooga badan ee reer maka waqtiga ahaa dhalinyartii markaa kacda buu ku yidhi iska fadhiista waayo wax ficilkan geystay baan maanta garanayaa maanta wallaahi wiilka adeerka u yahay waxaan u caayay si aanan weligay u caayine iska fadhiista khaladka anaalehe buu yidhi xamsena intaa kadib gurigiisa kusoo noqday dabcan isagoo wareersan yaaban leh maxaan ku hadlay maxaan sameeyey maxaan talow hadda aan sameeyaa sababta aabu markaa xamse uu isweydiinaya markaa ma qorshaynin oo qorshaaba iguma jirin inaan islaamnimada aan aqbalo haddana waa aniga maanta dadka hortoodii kaga dhawaaqay inaan islaamnimadii qaatay talow maxaan sameeyaa xamse maalinkaas markaa aad buu dabcan u murugoonayay wuxuu yidhi markaa wuu ducaystay wuxuu yidhi markaa ilaahayow hadalkaa aan ku dhawaaqay dadka hortooda hadda aan ka idhi dabcan arrin weyn weeyaan hadda haddaan ka noqdo ceeb bay igu tahay kama laba noqon karayo ilaahu waxaan ku weydiisanayaa diintani haddii ay xaq tahay qalbigayga ku sug oo arrintaa igu hanuuni haddii aysan arrintani xaq ahayn oo arrin khaldan aan sameeyeyna ilaahow isla markadan halkaa aan joogo igu dil dabcan u fiirso xamsena markuu wuxuu iminka ducadaas dhan u sameynayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu muslim yahay haddana wuxuu qalbiga ka leeyahay dee muslimnimadii ma aaminsani marka ilaahu hadday xaq tahayna igu sugo igu hanuuni haddii kalena hadda ilaahu aan dhintaa habeenkii oo dhanna waxaa la yidhaahdaa xamse wuu fikirayay habeenkii o dhan wuxuu samey garan la'aa subaxii markay noqotay iyo rasuulka sal slam u yimid uu yidhi adeerow shalay sidana dhacday si wixii o dhan buu uga wada warramay waxaan idhi islaamnimadaan qaatay anigoon dacdana aan rumaysnayn markaasuu rasuulku istaagay uu la hadlay waaniyey islaamnimadii u sharaxay su-aalo badan uu weydiiyey uga jawaabay ilaa marka u dambeysay xamse uu yidhi marka dhinac walba laga qanciyey hadda ayaa waxaan qiraya oo iga dhaadhacday inaad rasuul alle oo dhab ahaa tahay sidii ayuuna xamse markaas ku islaamay wuxuuna halkaa ka dhawaaqo uu yidhi maanta wixii ka dambeeyeysa ma doonayo inaan ku noqdo diintii islaam caabudka ee aabbayaasha inaan ku noqdo ma doonayo fiirsa markaa runtii xamse marka hore inuu islaamnimada aqbalo marka hore intuu islaamnimada soo jeclaaday qaabkaas muusan kusoo gelin laakiin caadifad qaaday iyo qabyaaladii iyo wixii qaaday dartii iyo qabiilkiisoo wax laga sheegay wiilku adeerka u ahaa oo si xun loo caayay arrintaas oo qaaday darteed ayaa markii dambe sabab ugu noqotay inuu islaamnimadii marka dambe uu dib uu kaga qanco runtii ducadii sida niyadda lahayd ee u ducaystay ee ilaahay uu ka baryeyna ducadii ilaahay uu aqbalay oo ilaahay waxaa ku qanciyey laabtiisiina u dejiyey laabtiisiina uu u furay islaamnimadii ilaa markii dambe xamse uu ka noqday marka dambe uu dhiman doono intaas sano kadib markuu dhiman doono uu noqon doono sayidu shuhadaa sayidka iyo hogaamiyaha dhammaan shuhadada oo dhan waqtigaas iyo marxaladdaa uu xamse islaamnimada qaatayna runtii muslimiinta iyo rasuulkaba guul weyn bay u noqotay xataa waxaa la yidhaahdaa maalintaa uu xamse islaam wixii ka dambeeyey reer quraysheed waxay dhimeen oo yareeyeen cadaadiskii ay rasuulka sal slam iyo saxaabadaba ay ku hayeen iyo jirtilkii faraha badnaa way yareeyeen runtii intaa kadibna muddo yar kadib oo la sheego xataa arrintaas maalinkaas ay dhici doonto 3 cisho un kadib haddana waxaa islaamnimadii qaatay qof kale oo Quraysh dhexdeeda aad iyo aad magac iyo quwad iyo magac iyo wax walba ugu dhex lahaa ayaa haddana isla 3 cisho kadib un islaamnimadii qaatay qofkaas oo ahaa Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu intaa wixii ka dambeeyna runtii muslimiintii awood aad u saa'ida ayay heleen oo waxaa ka dhacday nuurun calaa nuur runtii waqtigaas ay Xamza iyo Cumar labaduba islaamiyeen waxay ahayd bishii Dhulxijja sanadkii 6aad ee nabinimada waqtigaas ayay ku beegnayd runtii xalqadana waxaan ku soo qaadanay hijradii labaad markii ay saxaabadu hijroonayeen nin iyo xaaskiisa oo markaa laabta xirxiranaya inta Cumar bin Khadaab ku soo baxay uu ku yiri xagee tageysaan oo haweeneydii intay Cumar ay ku xanaaqday ay tiri idinka dartiin baanu wadanka idinka tageynaa waana dhibteen wadna cadaadiseen diintii aanu aaminsanayn baanu idinkaga dhaqmi laanahay markaas intuu Cumar uu yiri Ilaahay ha idin badbaadiyo ay inantiina marka gabadhiina marka runtii ay aad ula yaabtay markii dambe ninkeeda uu sheegtay dabcan qisadaas waxaan ku soo qaadanay xalqadihii hore runtii Cumar bin Khadaab iyo sababta u soo islaameyna waxa Cumar bin Khadaab ku dhacday duca Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu u duceeyay
rasuulkuna markaa ilaahay waxa weydiistay uu yidhi ilaahay waxaan ku weydiisanayaa labada nin oo kale ahaa cumar bin khadaab iyo abujahal ilaahu labada nin midka aad jeceshahay islaamnimada ku qawee u fiirsa markaa runtii labada nin waa abujahal iyo cumare wakhtigaa hore labaduba islaamka cawdi bay ku ahaayeen waxayna ahaayeen labada nin ee wakhtigaa maka ugu xooga badnaa hadday quwad ahaan jidhka ay noqoto iyo hadday noqoto xagga qabiilka iyo nasabka hadday noqoto labadaba way xoog badnaayeen markaas ee rasuulka sal slam uu leeyahay ilaahayo labadaa nin midka aad jeceshahay islaamka ku qawee ducadaasna runtii ilaahay uu aqbalay oo labadooda midka uu jeclaa oo dabcan cumar bin khadaaba ayaa islaamnimadii markii dambe ilaahay uu kusoo hanuuniyey halkaana waxay nooga baxaysaa runtii hidaayada iyo hanuunku inuu xagga rabbi uu ka yimaado waayo labadan qof marnaba lagama filaynin in islaamnimada ay qaadanayaan halkaana runtii waxaan ka faa'iidaysanaynaa mar walba inay fiican tahay dadowga saameynta leh in mar walba dacwadda loogu yeedho loo soo bandhigo wax si fiican wax loogu soo bandhigo waayo qofkaas saameynta lehi markuu dacwadda qaato wuxuu ka saameyn badan yahay qofka kale ee dadka caadiga iskaga dhex jira mar walbana runtii waxaa gudboon oo inaga xataa inala gudboon inaynu awoodda yar saaro dadyowga saameynta leh ee caanka ah ee bulshada kale ay eegayaan inaynu isku dayno bal dadkaas inaynu xogaa saameyno aynu islaamnimadii u bandhigno waayo iyaga haddaynu saameyn ku yeelano aynu ku guulaysano inaynu iyaga islaamnimada kusoo hanuunino iyaga dartood dad kale ayaa islaamnimadii u qaadanaya runtii wakhtigaas cumar bin khadaab oo islaamay intaa wixii ka dambeeyey muslimiintu xaaladoodu sidii isku bedeshay waxaa la yidhahdaa ibnu mascuud ayaa maalintii uu cumar bin khadaab uu sii dhimanayey ayaa kelmad caan ah ayuu yidhi oo waxau yidhi mascuud baa yidhi laga soo bilaabo maalintii uu cumar bin khadaab oo islaamnimada aqbalay ilaa maanta oo ah wakhtigan uu cumar uu dhimanayo cizo iyo sharaf ayaanu ku noolayn xataa cumar bin khadaab khaliifadiisii iyo wakhtiga muslimiinta uu khaliifka u ahaa islaamka iyo muslimiinta waxa uu gaarsiiyey heerkoodii ugu sarreysay siyaasad ahaan hadday noqoto dagaal hadday noqoto meel walba muslimiinta iyo islaamka meesha ugu sarreysa ayuu gaarsiiyey meelaha uu qabsaday iyo fogida iyo inta ay leeyihiin fogida macnaha runtii iyo siday u badan tahay hadday noqoto bariga meeshuu ka gaadhay galbeedka meeshuu ka gaadhay insha allahuna waxaynu ku qaadan doonaa xalqadeena soo socda ee dambe waxaan filayaa insha allahu dhowr sano kadib inaynu gaari doonee ibni mascuud oo runtii isaguna kamid ahaa oo muslimiintii waqti ugu hore islaamnimada aqbalay waxaa la yidhahdaa waqtigaa hore ibni mascuud weligii xaramka muusan ku tukanin laakiin maalintaa cumar bin khadaab oo islaamay maalintaas ayay u suurto gashay inuu xaramka uu ku tukado sidoo kale cumar xataa waxaa la weydiiyey lagu yidhi cumarow ciwaanka ah alfaaruuq sidee baad ku heshay waayo waxaan ognahay abubakar waxaa la odhan jiray abubakar sadiiq cumarna waxaa la odhan jiray cumar alfaaruuq marka waxaa lagu yidhi ciwaankan alfaaruuq sidee baad ku heshay alfaaruuqna marka la macnay waxaa ka dhigan tahay kii kala saarayey xaqa iyo baadilka su-aashaa markii la weydiiyeyna cumar wuxuu yidhi magacan waxaa ii bixiyey rasuulka sal slam waxayna ahayd markii ugu horreysay ee koobaad ee muslimiintu kacbada ku tukadaan wakhtigaana waa markii uu xamsiya ay islaameen dabcan cumare wakhtigaana laba leen baan isu kala qaybinay muslimiintii leynka horena aniga hogaaminayey leynka labaadna xamsa hogaaminayey markaas markii koobaad ay noqotay muslimiintu inay kacbada ku tukadaan maalintaas ayuu rasuulka sal slam yidhi waxaa tahay cumar alfaaruuq cumarkii xaqa iyo baadilka kala saarayey halkaas ayay magaca ka helay haddaba runtii marka laga waramayo cumar bin khadaab iyo qaabka islaamnimada uu aqbalay hal dhacdo oo kaliya ma jirta dhacdooyin kala duwan oo lasoo wariyay ayaa jirta taasoo markaa ka dhigan dhacdooyinkaas kala duwan markay dhaceen kadib ayuu qalbigiisa uu islaamnimadii markaa usoo jilcay dhacdooyin kala duwan oo markaa kutub kala duwan ay soo warinayso la oranayo markana dhacay haddana kan kala dhacay haddana kan kala dhacay marka waxaan odhanaynaa waynu soo warinaa waynu isku darinaa waxaan odhanaynaa marka intaasoo dhan ayaa cumar markaa saameyn ku yeeshay oo ku kalifay inuu islaamnimadii markaa dambe uu aqbalo runtii haddaba dhacdooyinka kala duwan ee lasoo wariyey ee ku saabsan cumar bin khadaab iyo qaabkii uu islaamay xalqada dambe ayaynu insha allah aynu ka dhigan doonaa qaybtan marka insha allah qaybta commentiga waxaad kusoo qori doontaan qaybtan qaybka aadka uga heshay sida aad u bogtay iyo waxa maanta aynu ka faa'iideysan karno iyo casharkeena ka qaadan karno ayaad soo qori doontaa su-aalahan maanta isweydiinayna waxay noqon doonaan runtii waana su-aalo ka yara baxsan su-aalihii horena isweydiin jiray oo kale dabcan su-aalihii hore waxay ahaan jireen xalqadiheenii hore ayaynu wax iska weydiin jiray laakiin xalqadan dambe waxaan doonaya hadda kadib inaan kusoo yar dhex daro su-aalo kale oo yar islaamig ah oo sirideena la xiriira haddana aana badanaa aana ku jirin ama aana xalqadeena hore aana kaga soo waramin laakiin su-aalo iska guud una ay noqon doonaan su-aasha aan maanta doonaynaana waxa weeyaan oo sirideena dabcan way ku jirtaa
waxaan filayaa qaybo kamid mar baynu wax ka soo yartaabanay waynu arki doonaa xagga dambena waynu ka arki doonaa waxa su'aasha marka waxay leedahay waxaad sheegtaa laba camal oo labada camal marka la sameeyo ay ka dhigan tahay qofkaasi inuu ajar cumro ah oo kale inuu helay marka waa su'aasha waxaanaysaa labada camal waxay kala yihiin saas iyo saas bas sheegi marka maxaan ku su'aasha waxa weeyaan waxaad sheegaysaa laba camal oo qofku marka uu sameeyo ajarka uu ka helayaa ay ka dhigan tahay ajarkii cumrada oo kale kaasaad insha Allah aad soo qori doontaan dabcan qofkii soo baari kara waa asxan qofkii hore u maqlo oo garanayna waa ka wanaagsan qaybta commentiga insha Allah ku soo qori doontaan marka hadda kadibna fikir kale fiican oo sameynay commentiga maalin qof inuu soo qoriyay xalqadii hore xataa waxaan sameyn jiray su'aalaha isweydiin jiray su'aalaha markaan isweydiino su'aasha maalinkan weydiiyo maalinka labaad ee xalqada soo dhigayo ayaan qofka su'aashii hore qofka saxay yaan biin baan ugu qaban jiray macnaha commentiga xagga sare soo dhigi jiray oo si dadka dambe ay u arkaan laakiin hadda kadib waxaan sameynaynaa su'aashan aan maanta idin weydiiyey jawaabteeda waxaan ku sheegi doonaa xalqada dambe marka maanta maadaama ay isniinta oo daawanaysaan jawaabteeda waxaan sheegi doonaa maxay jimcaha soo kala dirina jawaabteeda waxaan sheegaynaa isniinta kale marka maadaama usbuuc laba jeer aan soo gelino saas insha Allah soo weynaa marka balantaana jimcaha ayna gaarin insha Allah xalqada kale soo gelinin su'aashan waa isku sii day doontaan markaas qaybta xaggasan ku jirina dhamaantiin badin salaamiya